Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Asxaabta kusoo dhawaada dhammaan channelka Nagaha Adduunka meel walbaad kala joogtaan. Maanta waxaan ka hadli doonaa filimka Cusmaan Kulus Cusmaan nin walba siduu u yaqaano. Waxaan ka hadlaynaa qeybtiisii 111 iyo qeybtiisii 112. labada qaybood oo laba qaybood oo soo gaadhay talo maxaa dhacay, maxaa isbedelay. Sidaad wada ogtihiin Suldaan Ismahaan ma ahan wiilka hooyadii ee Alaaudiin sida filimkan ay ku jilayso, laakiin qisada caadigeeda Alaaudiin hooyadii iyada gacanta ku disha oo waxay guursataa Suldaan Mascuud. Waxay ka tirsanayd ayagu Saljuuqiyiinta qaybihii hore. ilaan Cusmaan iyo Saljuuqiyiinta marka la isdhaco, Sulmaan iyo Saljuuqiyiinta waxaa zaid ugu horeeyay Saljuuqiyiintii. Iyadoo waxay ka tirsanaysaa Saljuuqiyiinta oo waayo waa boqorad dhan oo waxa hoos yimaado dowlado fara badan. Sidaas la ajligeed ma doonayso in Cusmaan iyo qaybahooda ay u taliyaan. Waxay xidhaa Cusmaan oo waxay dhex dhigtaa xabsiga isagoo ay ku eedeynayso inuu kala wareego dhulkeedii iyo qasriyadeedii. Ay leedahay waxay kala wareegay Cusmaan sababtaas in xoog ayuu noo sheeganaya uuna kibray oo anagu nagu soo horjeedsaday. Sababtu noogu soo horjeedsanayo ayaan fahmi lahay uuna noo adeeci lahay anaga amarkanagana uu diidayo. Sida aan u gudagalnay qaybta 111 waxaa isbedela in Cusmaan ay baalaa xarig lagu ka horeynteena ku xiran. Waxay dabin u dhigtaa baalaa oo waxay tiraahdaa haddii aad doonayso aabaha iyo nool inaad aragto waa inaad keligaa igu timaadaa qasriga Marmajaak. Sababtaas waxay u dhigtaa labadoodaba dabin si Cusmaan uu dabinkeeda ugu soo dhaco ay Cusmaan ku disho, laakiin si uu u suurtageli weydaa oo waxay xarig ku xidhxidhataa baalaa iyo Sheekh Dabaali oo ay tiraahdaa kasoo laalaadaya meesha oo ha ku dhintaane. Cusmaan dabinkaas ayuu ku soo dhacay isaguna waxay tiraahdaa ma imanaysaa qasriga mise ayaga ayaan dilaa beri aroortii. Iyadoo intaa ku dhaaranaysa ayuu Cusmaan wuxuu ka soo galaa qasriga dhulka hoose. Markuu dhulka hoose ka soo galo uu dhulkii hoose soo maro waxaa la sii hayaaba baalaa iyo Sheekh Dabaali bay mid sii qabataa oo waxay tiraahdaa haddii aad ii soo dhawaato Cusmaanow waan dilayaa labadooda. haddii aad ii keeni weydo Sheekh Mascuud Suldaan Mascuud Suldaan Mascuud haddii aad ii keeni weydo labadoodaba waan dilayaa beri oo aroorta intaynan soo bixin qoraxda ayaan halkaa ka soo laalaadinaya. Sidaasayna ku dhimanayaan. Iskana hayso Suldaan Mascuud haddaad ii keeni weysa haddaad ii keenta laakiinse labadoodana waan badbaadinayaa oo waan sii daynayaa. Aniguna Suldaan Mascuud ayaan doonayaa. Suldaan Mascuud iyo iyadana waxaa ka dhexeeya xurgufo saasoo ah inay iyadu qasriga ku soo gashay suldaannimada beenbeen oo ay dishay inanka yaroo Alaaudiin uu u yahay adeerka Andhehe Mascuud oo ah isagu Xasrad Suldaan maxaa la dhahaa isaga Xasrad uu ka socdaa oo adeer ayuu u yahay Suldaan Mascuud. laakiinse iyadan waxa ay dishay inanka hooyadii oo inanku ma ogo. waxay ku tiraahdaa Suldaan Mascuud wuxuu ka qaadanayaa qasriga oo wuxuu dib kaaga noqonayaa inuu ku doortay adiga ha yeelin iska dil Suldaan Mascuud. iyadoo intaas sii eegaysa Cusmaan markii laga qabsado labada laguna yidhaahdo keen isagoo u baahan Suldaan Mascuud una ballan qaaday inuu dib ugu celin doono boqortooyadiisa, balse way u suurtageli weydaa oo waayo waxaa laga haystaa laba qof. hadduu keeni waayana aroortaba waa la dilayaa. Cusmaan dib ayuu soo noqdaa oo wuu fikiraa wuxuuna ku yidhaahdaa Suldaan Mascuudow berri waan anigu ku geynayaa qasrigii oo waan kuu geynayaa Suldaan Ismahaan. inkastoo ay tahay shay daamad oo ka soo horjeeda qaybtaasi ayaa dhaar ku mara in uu u geyn doono, balse wuxuu yidhi waxaan u fikirayaa sida aabbahay, waxaan wax u samaynayaa sida aabbahay, waxaan u dhaqmayaa sida aabbahay. adi wax walba wuxuu isku lifaaqay inuu u samayn doono sida aabbihii, balse wuxuu soo qaataa cimaamadii uu madaxa ku duuban jiray Sheekh Dabaali iyo gacantii uu aabbihii haysan jiray. labadii markuu soo xidho maradii yareed ee udgooneyd ee baalaha haysan jirtay ayuu gacanta ku duuduubaa. kadibna wuxuu ku dhaartaa inuu sida aabihii u fikiri doono Suldaan Ismahaanna uu wax badan ka bedeli doono. waa qaybta 111 waxaa dhici doona weeye oo ah in baalaa ay xadhigga daldalka ka badbaadi doonta ayaan jeclahay. qaybta 112 111 aan ku idhaahday waxaa tashtaa Suldaan Fasrad ayaa 111 waxaa dib u heshiiya Turguud iyo Cusmaan. wuxuu ku idhaahdaa waxaa iman doona Alaaudiin wuxuuna iman doonaa qasriga Marmajaak ee ka hortag waxaadna geysaa Suguud oo halkaa
kuna siisii kadibna u sheeg Marwo Malhuun in ay haysato faa'iido taasoo ah suntan ay ku faafisay Marwo Ismahaan in ay ka badbaadiyaan bahalkii guud keenay Suldaan Alauddin Suguud. waxaa dhici doona wax la yaab leh. Suldaan Alauddin waxaa loo keenaa cunto taasoo lagu soo daray sunta hurdada oo uu seexan doono Suguud dhexdeeda, balse isagu ma ogeyn oo uu ka shakisnaa Cusmaan iyo inta la shaqaysaba. Marwo Malhuun waxay samaysaa sunta, waxay ugu dartaa qayb ka mid ah cuntada, wuuna cunaa kadibna wuu luloodaa ama wuu hurdoodaa, wuuna seexdaa. waxay ku tiraahdaa waa daalan tahay, balse orodoo iska seexo, maanta oo dhan ayaad safar ku soo jirtay, qolkaaguna waa ku diyaar, ee geeyo qolkiisa. wasiirka oo kaxee ha seexdo Suldaan Alauddin, waayo waa uu daalan yahay. kadib waxaa dhacda in uu seexdo qasriga, kadibna sunta uu ku yidhaahdo waxaa ka daaweyn karaya kuwa jooga Konya, dhiktoorada soo kaxee si ay uga caafiyaan ama ay uga daweeyaan dhiktoorada suntan dhex taalla Suguud. sababtaas ayuuna ugu diraa, waayo isaga faa'iido ayay u tahay. Cusmaan waxaa la geliyaa xabsiga, kadibna waxaa loo ballan qaadayaa in uu halkaa ku jiri doono inta ugu dambeysa cimrigiisa, balse ma dhacayso. waa oo qorsho in uu galaya xabsiga, wuxuuna badbaadiyay daawadow in uu badbaadin doono Baalaa iyo Sheekh Dabaali qaybtan 111 isla dhexdeeda, uuna ka badbaadin doono Suldaan Ismahaan inta aynan dilin ama aynan daldalin labadoodaba. balse waxayna ogeyn oynan hubsaninba in ciidamada u shaqaynaya badi Suldaan Ismahaan ay yihiin ciidamo ka tirsan Cusmaan oo uu dhexgeliyey ayaga, kadibna uu u xidhay dharkoodoo kale. laakiinse iyadu waxay sii wadataa maskax kale oo waxa ay rabtaa in ay Oloof iyo kii kaleba ay ku wareejiso qasrigan Barmajaak, oy tiraahdo idinka ayaa iskale, waa nii hibeeyey, aniguna waan ka talinayaa. oo waxay rabtaa in ay Oloof iyo magaciisa igu adakaase ay maamusho labadoodaba, oy maskaxda ka maamusho, oy u talisa ayaga. balse ma oga miya in Cusmaani uu u talinayo labadoodaba oo uu ka cabsanayaan zaid. welibana markii qasriga lagala wareego Barmajaak, Cusmaan aadayuu xanaaqa, kadibna waxay tiraahdaa kan keliyata kuma ekaan doono, balse waxa aan la wareegi doonaa anigu oon lahaan doonaa in aan la wareego. aan aad u sii jecelahay Yanishiir meeshuu Cusmaan ka taliyo ayaan doonayaa ayay tiri, intuu xidhan yahay Cusmaani qaybta 112aad. moogtahay daawadow inay dhici doonto wax aad u la yaab leh oo ah in ay kala wareegi doonto Cusmaan booska uu degan yahay, uu ka talinayo Yanishiir dhexdeeda inay la wareegto, ay dhammaan calamadii Cusmaan uu lahaa ay la degto oo ay dhulka geliso, oo ay tiraahdo qasrigan aniga ayaa iskale saaca laga bilaabo, oo wuxuu ka tirsan yahay Saljuuqiyiinta. annaga ayaa iskale, markii horeba Cusmaanow annaga ayaa wax kaa dhignay oo magacaaga sidan u weyneynay, waxaa la yaalo waxaad ahaydba ma jirto. balse Cusmaan ayaduu xanaaqa oo waxa uu ku jira xilliga joogtada xabsiga dhexdiisa, warna kama hayo waxa ka dhacay banaanka dibadiisa. laakiinse waxa dhaawac culus ku soo gaadhayaan jeclahay ninka badbaadiya Baalaa iyo Sheekh Dabaali aan dhahe. labadaas ninka badbaadinaya waa Cusmaan, wiilkii uu adeerka u yahay ayaa badbaadin doona oo ku tuuri doona fallaadhe. sababtaas ayuuna u badbaadiyaa bay dhahaan in uu kala soo baxayo Baalaa iyo Sheekh Dabaali ay sidaa ku badbaadaan. Alauddin uu yimaado uu yidhaahdo labadooda booskoodiiba isaga xarayso oo xidh, labadana siidaa, xabsiga ha ka baxaane. kadib waxay tiraahdaa ma sidaaba ahaa, qasrigana way la wareegtaa. Yanishiirna waxay tiraahdaa aniga ayaa iskale oo aniga ayaa ka talinaya. dhulka uu Cusmaan nagala wareegay oo hore nooga qaatay, hadda ayaan ka soo ceshanaynaa. kadib Cusmaan wuu xanaaqaa oo wuxuu dilaa kaas magaciisa igu yar adag Kosos la dhahay magaciisa igu yar adag, balse Kosos ayuu yidhaahdaa Cusmaani ninka Oloof u talinaya waa inaan dilaa. Kososna wuxuu jaanis ku helaa Cusmaan oo xidhan, oo waxa ay ku tiraahdo Suldaan Ismahaan, Cusmaan wakaa ku xidhan yahay, ka soo cadgooso
dil isagana anagu haddaan dilo sharaf xumo ayay nagu tahayo sharaftayna ayaan ilaalinaynaa balse ma ogo inuu Cusmaan gacmihiisu ka furan yihiin wuxuu moodayay intii hore inuu gacmaha ka xiran yahay oo chance baad ku haysataa islaha balse halkaas ayuu ku dilaa ka ku dhintaa Kosis oo ku dhaawacmana Olof taawade intaas aynu ku soo gabagabaynay labadii qaybood oo waan isku soo darnay dhammaantood waad ku mahadsantahay intaad daawanaysay daawada sharafta badan fadlan haddii aad ka heshay channelkan subscribe ka saar fadlan inaad la wadaagto hal qof xataa isku day